waxayna habeen sugaanadu halabuurkiisa abwaaniga ku soo bandhigay abwaan Axmed Shilka oo kamid ah abwaanada deegaanka Soomaalida kuwa ugu daada yar waxa laga dalacsiiyay Shilke tartankii uu gali jiray inuuna dib tartan suugaaneed u gelin ee uu ka mid noqdo kuwa tartansiin doona ee garsoorka noqonaya hadii run ahaantii farxad bay tahay iyo dhiirigelin weyn in intiinani maanta aad waqti soo hortaan aniga darteena aad halka u soo fadhiisateen waxa runtii aan aad u dareemayaa in aan ahay waxa la yiri ninku tabay ku taageer Soomaaliyeed intaas oo qof oo aad darta halka u soo fadhiisatay inay yihiin dad ku heelan oo qalbi wanaagsan iyo taageero iyo dhiirigelin ba ku muujinaya waan idinka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba madashan waxa soo qaban qaabiya aqoonyahanka deegaanka Soomaalida waxaana maalgeliyay shirkadda eBir ka shaqeysa dhinaca lacagaha elektarooniga ujeedada xalfadan ayaa waxay daaranay daahfurka iyo furitaan loo sameeyay barnaamijyo taxana oo ka koobnaan doona suugaan doodo diiniya iyo waliba bandhiga aqooneed kala duwan habeenka hal abuurka deegaanka Soomaalida waxa ka soo qayb galay madax ka socotay xukuumadda deegaanka Soomaalida mas'uuliyiin ka socday ururka Onlif mas'uuliyiinta shirkadda eBir dhalinyaro iyo aqoonyahan intay munaasabadan socotay waxa madasha ka hadlay mas'uuliyiintii ka soo qayb galay oo dhamaantood halkaas ka soo jeediyay inay muhiim tahay in la sii xoojiyo munaasabadaha noocan oo kale isla markaana ay sheegeen inay dhiirigelin noqonayso dhalinyarada waxaana si weyn uga mahadceliyeen shirkadda eBir waxa ii sharaf ah inaan ka soo qayb galo barnaamijkan hal abuurka iyo hal doorka deegaanka oo ah barnaamij ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaro iskood isku xilqaamay isla markaana qaybta ku aadan horumarka deegaanka inay ka soo baxaan diyaar u ah sharaf ay ii tahay inaan barnaamijyada caynkana dhalinyarada kala soo qayb galo markastana waxaanu ku dhiirinna kuna garab taaganahay dhalinyarada hawlaha caynkan wada eBir waxay u taagan tahay electronic bir eBir waxa weeye habka adeegsiga mobilada aalada gacanta lagu wato taleefanka oo lacagaha yar yar la isku diro waxaan idinku bishaareynayaa eBir inay 3 sano jirto 2 sano ee hore ay ka jirtay Ethiopia oo dad Soomaaliya maskaxdooda intay tuujiyeen yiraahdo Ethiopia iyagu wax naga soo raadsan jirtay ceelashan shidaalka iyo muxuu ahaa waxyaalo fara badan tiiba marka saasaynu ku nimid maxaa qorshahana ku jira Kaafi Magar Finance inaan soo wadno oo deegaanka aanu keenno oo daymihi bixin doona markii la igu yiri Axmed Shilka halka hawl yar ku hayo oo ugu yaraan isagu imanaya waxa isiri markuu uu yaray heesa uu gabdhaha ku amaanay iyo gabay iyo sheegi doonay marka waan isaga baahanahay marmar ma ogtahay inaad suudka iyo iska dhigtido sidii Xasan aan Samatar heesaha war dheer baan ku habaa naftayda aad yar lahayd eBir way mahadsan tahay waliba waan yar nafisi lahayn hadii xafladahan kale noo badiyaan dhalinyarada noo dhiirigeliyaan hal abuurkan isaga oo muhiim u yahay oo ka turjumaya jiritaankanaga haddana in xadaarada kale ee ganacsiga ee suuqa dadka kale ee inaga fogfog ay ku xisaabtamayaan Ethiopia 110 milyan oo joogta innagiina aynu dhex taaganahay aqligiina waynu leenahay wixiina waynu samayn karnaa dawladuna way taageeraysaa shilka aad baan u soo dhaweynaya hadda waagiina nala garaacday ma shilkaha aan kula garaacday waaga rusheynayna baashin la dhacay haydo suugaantu maadaama ayna saxaafad qoran lahayn saxaafad la iska arkan lahayn waxa qofka Soomaaliga dhaaregta gareeyo suugaanta ahayd annaga hadaanu dadkii halgamay ahayn waxay noo qabatay kaalin weyn deegaanka Soomaalida waxa ka jira 3 shirkadood oo ka shaqeeya dhanka elektarooniga lacagaha oo kala ah shirkadda Sahay Hello Cash iyo eBir shirkadda eBir ayaa ah shirkadda kaliya ee wax khidmada ilaa hadda bulshada ka goosanin Cabdiraxmaan Buux Home Cable TV xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga